السلام عليكم magacay Faadma leeyahay maanta waxaan doonayaa inaan idinla qaybsado waxyaabaha aan maaragtay iska daayay cuntooyinka maadaama aan bariyahan wado fiidiyoyo maaragtay ku saabsan miisaanka isaan iskaga rid doono iyo waayo waxaan bilaabay inaan miisaanka iska rido marka maanta dadka aniga maaragtay ila socda ay doonayaan iyaguna inay miisaanka iska ridaan waxaan ku fikiray in maaragtay inaan fiidiyogan idinla soo wadaago si maaragtay idinkuna hadda even هذا ربطان أو يذكرون على سليدي وحكي فائدة معركة فيديو كان ويعني أنا واحد دوني يعني حسوسي نقطة هذا next time معركة أندوني أنا قلنا أنا فيديو كان دي بتعوضه إن شاء الله ده in the future معركة أندونيو ميسان كلا ده عن إسكردو مركا واحد دوني مانت إن لو ده جو عنتوين كأن إسكتشوتشي هذا أنا أفكار سارين أو أن أركو isbedel already like أنا شيء وحيابها هرتا iska joojiyo cuntada aan awl cuni jiray waxa aan maartay cuntada aan joojiyay waxa kamida waxa weeyaan sonkor horta markii ugu horeysay ba laba bilood ka hor baa joojiyay bis saddex bilood ma iska sonkor maartay inaan shaaha ku shubto oo ama maartay pancake jeclaa malawax ma iska leh malawax kana maartay aad u jeclaa marka malawax baan sonkor badan ku dari jiray sonkor waa iska daayay like sonkorta coffee aan ku darsan jiray shaaha ku darsan jiray anything oo sonkor maartay ku dhex walaaqan jiray waa joojiyay sonkor dhan waa ka go'ay alxamdulillah waxa ku xigtay oo aan marka ilaa jimcii hadda aan joojiyay waa coffee-ga coffee-gi waxa aan u joojiyay sababtoo waxaan ogaaday in qofka thyroid kale inay coffee-ga u fiicneen marka coffee-ga waa ka go'ay aroor kasta coffee baan cabi jiray horta maalintii next day-dii Saturday-dii iyo Sunday-dii madax xanuun bay ku dhacay laga yaabay coffee-ga aan joojiyay ay ahayd weekend-kii oo dhan waan jiifay madaxa xanuunayay waxyaabo badan maartay baan arkay in cuntada marka isla markiiba aan maartay coffee-ga aan ka go'ay uu ka mid yahay in madax xanuun aanan arki jirin ba igu dhacay marka laga yaabay in coffee-ga taa jirkeyga maartay uu doonayay waayo weligii coffee-ga waa cabi jiray marka markaan joojiyay yaas isla markiiba marka adiguna hadii aad coffee-ga aad mar qura joojisid laga yaabay ama shaaha joojisid inaad isku aragtid madax xanuun anigu waxaan u maleynayaa in coffee-ga yahay saasaan u badinayaa ta kale aan joojiyay waxa weeyaan bariis iyo basto sidii jimcii hadda ilaa jimcihii bariis iyo basto midna maaragtay maan cunin oo ka go'ayagana waan joojiyay waxaan ku bedelay maaragtay waayo waxaad u baahantahay de wax maaragtay iska yar cuntid oo yara adag oo caloosha ku buuxinaya baad iska rabtaa samaha marka waxaan ku bedelay inta badan cunto kasta aan cunayo waxaan ku bedelay ama beed ama baradho marka baradho yar baan maaragtay instapotka ku dhex sameeyaa marka baradhadaas hadda waan tusaya sawirkaas inta badan cunto halka ku jirta inta badan qadadii maaragtay ama saddex ama laba xabo baradho ay ku jirta marka taasaan maaragtay u bedeshay bariiskii maaragtay baradhan ka dhigtay ama beed aan karkariyo ta kale ku xigta xooyaan roodi nooc kasta ay tahay roodi waan joojiyay waayo roodidu inta badan hadii maartay gluten leedahay by the way thank you so much maartay qof baa xaq igu soo qoray wad mahadsan tahay video aan soo geliyay laha mar roodi ma ku cunay asaasa qof xaq igu soo qoray walaha ma xasuusto qofka magaciisa laakiin wuxuu yiri roodida cunaysid ma hubtaa inay maartay gluten free tahay waayo hadii gluten ay ku dhex jiro thyroidku uma fiicna maaragtay hadii aad thyroid leedahay baan sheegayaa oo sidoo kale hadda active aad leedahay roodida maaragtay waxa ku jirta gluten baa inta badan ku jira marka hadii aad roodida jeceshahay laakiin aad miisaan iska rideen waxaad doorataa gluten free doono laakiin aniga hadda roodiyo ma rabo waayo maadaama aan miisaanka maaragtay aan doonayno inaan iska rido roodi dhan waan ka go'ay roodi dhan waan joojiyay ta kale ku xigta waxa weeyaan aan joojiyay waxa weeyaan broccoli iyo sawirka waan tusayaa magacyadaas maartay qaar ma karo maxay ahayd sprouts bal miya something ingiriiska marka qosada hadda u jeedaan awal cuntada waan ku samaysan jiray waan cuni jiray inkastoo haddana ay maartay miisaan kuma korayo laakiin wuxuu xun yahay wuxuu ka mid yahay maartay la yiraahdo qudrada maartay ay isku mid yihiin wax weyn kaabishka waan xustaa Soomaaliyeed maartay markaan joogay markaan yaraa kaabishka maartay maraq lagu karkariyo alla saan jeclaan jiray macaan hadda maartay ويصير دمي والله مرقاس iyo kaabishka marka la isku dhex karkariyo waxa weeyaan my favorite cunto bay ahaan jirtay laakiin maalintan ogaaday in maaragtay uu kaabishku u xun yahay thyroidka dib oo u dambaysa kaabish maaragtay ma soo qaadan wala kan maaragtay saladka lagu dardaro ama kan la karkariyaba labadaba maaragtay waan joojiyay waayo dadka thyroid kale uma fiicna wuu si kicinaya miya I don't know waxba dhakhtarku macaawi sheegay marka
cabbage iyo broccoli iyo tan hadda sawirada intuu sayo oo dhan waxaas oo dhan wax weeyaan qofka thyroid kale uma fiicna marka cuntooyinkaasna waan joojiyay waxaan kala joojiyay caanaha magaranaysa aan shaaha ku cadaysan jiray ama aan coffee ku cadaysan jiray waxaan ku bedelay almond milk baan ku bedelay iyo milk maaragtay laga sameeyo boorashka iyo caanooyinka kale maaragtay ee aan saca lo'da laga keenin weeyaan marka kuwan wax weeyaan waa kuwii almondkii maaragtay iyo boorashkii baan kuwaasan maaragtay ku shubtaa haddaan doonaya cabo iyo haddaan boorashka aroortii maaragtay haddaan markaa ku samaysanayo caanahaasaan isticmaalaa marka idinkuna tijaabiya waayo caanaha maaragtay inta badan ma fiicna maaragtay marka dee aad weliba anigu waxaan cabi jiray full maaragtay full milk baan cabi jiray kan maaragtay full fat baan anigu waa necba maaragtay waxaan low fat la yiraahdo bilaa dhadhan weeyaan iidan waa ama ka go'a ama full fat kan doontaa hadda sida yogurt oo kale full fat baan doortaa marka iyo wax kale aan ka go'ay waxa weeyaan cheese maaragtay maxaa fromage fariska la yiraahdaa cheeseka waa iska garanaysaa sawirkaasaan tusayaa noocyadaasna maaragtay waan joojiyay kuwaasna waan cuni jiray markasta maaragtay aroortii oo kale ama galabtii oo kale waan aad baan u jeclahay maaragtay fromageka iyo cheeseka waxyaada dee talyaaniga garanaya fromage oo malinaysanada aad baan u jeclahay marka kaasna waan joojiyay waayo dee fatba maaragtay waa wararbu kuwaas ku keenayaa maxay kale oo aan joojiyay intaas aan malinaya hadda iyo waxaan cuni jiray chocolate maaragtay chocolate baan maalintii pancakes aan sheegay galabtii oo kale ciyaalka marmarma pancake u sameeyaa aniguna mid baan maaragtay ilaa 2 xab baan ku darsan jiray Nutella ama anything maaragtay wax kale ama malab ama wuxuun baan maaragtay isku walaaqi jiray macmacaankan bariyahan aad u jeclaaday marka wax macmacaana iyo ice cream iyo wixii macmacaanka ah oo diyaarsan oo la soo iibsado ama chocolate ha noqoto chocolate bar maaragtay kuwan Kinder Bueno iyo waxyaabahaas oo dhan gurigiiska oo la jiray marba maaragtay markaan u baahanay ma iska cuni jiray marka waxaas oo dhan hadda guriga waan ka joojiyay wax macmacaan guriga yaala ma jirto wala chocolate wala ice cream nothing and I know waxa way adag tahay laakiin marka maaragtay aad madaxaaga maaragtay aad maskaxdaada u soo jeedisid markaad isu soo jeesatid oo aad tiraadid khalaas miisaanka waa inaan iska rido dab ay ka tahay maaragtay waxaas waad ka go'aysaa marka aniga hadda alxamdulillah jimcihii waxa idin sheegayo dhan maaragtay midna ma cunin waa waxyaabasan waxaan jeclaan jiray talaagadeeda iyo gurigeeda maaragtay ooli jirtay inkastoo ay qaariyaalin haddana maaragtay aniga gooni ma cunto u samaysaa marka ciyaalka haddayda iga cunayaan inta badan vegetables ma jecla hadda laakiin aabahood wax kala u sameeyaa waxa aan marka aabahoodna u sameeyo maaragtay jamaal u sameeyo isagana maaragtay dee wuu cunaa guriga way yaalaa laakiin aniga hadda hunguriba igama hayo marka maskaxdeedan ka saaray alxamdulillah way filaatay already waan arkaa I'm so happy wallahi alxamdulillah like waan la share gareyn doonaa insha Allah I don't know the number noqon doono laakiin jirkeyga waan arkaa already waxba iga dhacay waan fududaaday ta kale aan joojiyay waxa weeyaan hilib ari horta hilib ari horta ilaa hadda 2 bilood ba ma cunin waayo 2 joor aan cunay baa next day marna dibadaan wax ka soo cunay barihi magarsa intaan lockdown la gelin bay ahayd restaurant ma tagay oo hilib ka soo cunay next day ma tag baan ku hashay wax xanuunsaday marka maan ogeyn maaragtay inay hilibku ahaa hadana maalin kale baan hadana cunay silsileeg 3 maalmood marka aan hilibka cunay hilibka badan inta badan ma cuno laakiin hilib ariya iyo beer baan cunay malinaya intaasba markasta marka cuno next day waan jiifaa waan xanuunsanaya weligeena caloosha maartay man may diidi jiray wax saasa laakiin maadaama hadda aan hilibka ku xanuunsado iyagana mar hore aan jarayba laakiin maan jarin hadda intaan bilaabay dietkayga way before baan hilibka ariga iyo beerka maartay arooti waxaas mar hore aan jaray marka hilibka waxaan cuno waxa weeyaan chicken maartay steak ma cunaa iyo hilib shiidan oo marka aan ku dhex kariyay aan ku shiiday basal qura kaas aan hilibka dhigtaa saliid aan cuntada ku sameeyana wax weeyaan avocado oil hadda isticmaalaa waa isaan maqlay avocado oil fat badan ma laha marka intaas hadda aan isku samaystaa videogan quick maaragtay waxaan idin soo gudbinayay just inaad maaragtay idinkuna aad ila socotaan maaragtay hadda idinkuna wadaan inaad idinkuna cuntada maarta asleedin tolo maxaan iska joojiyaa maxaa cunaa marka just idea maarta idin noqoto fikrad oo kale ah marka taas waan videoga idin soo gudbiyay ta kale insha Allah waxaan rajaynayaa waqti markaan helo inaan markaan dukaanka tagayo cuntada aan dooranayo soo qaadanayo oo vlog ka soo sameeyo
oo aan cuntada soo duubo maaragtay noocyada aan markaa soo iibsanayo aad markaa shopping aad aragtaan meesha cuntada aan soo kasoo iibsanayo insha Allah marka video kaasaan ku dhamaanaya asxaabta I hope inaan waxba ilaawin laakiin intii aan hadda aan cuntada aan joojiyay waan idin sheegay caanihii aan ku bedelana waan tusay waan malinaya insha Allah marka wakaas asxaabta kaasaan video ku dhamaanaya assalamu calaykum